war cusub oo ka soo kordhay safarka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ee Dhuusamareeb ayaan warbixintan ku eegayaa balse daawade haddii aad soo booqatay boggeena hoggaanka wararka waxaan ka codsanayaa inaad na soo follow gareyso sidoo kale tan muuqaalkan aad like gareyso ka basi wanaagsan haddii aad u share gareyso saaxiib adigoo kale waad ku mahadsan tahay la socodkaada wararka naga soo gaaraya gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in maanta wafdi hordhac u ah madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ay gaareen gudaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamul goboleedka Galmudug halkaas oo si ballaaran loogu soo dhaweeyay xubnaha maanta gaaray Dhuusamareeb ayaa isugu jiro saraakiil wasiiro iyo xildhibaano sida uu shaaciyay mid ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaaladaasi magaalada caasimadda u ah Galmudug ee Dhuusamareeb waxaa maanta soo gaaray saraakiil ciidan xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka wasiiro ka tirsan dowladda federaalka ayuu yiri wariyaha idaacadda kulmiye ee Dhuusamareeb sidoo kale wuxuu intaas ku daray in ciidamo ka tirsan kuwa ilaalada madaxtooyada laga dejiyay halkaasi kuwaasoo xaqiijin doona amniga meesha uu degayo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ee mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaa sidoo kale magaalada soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ilaalada madaxtooyada qaranka hordhac u ah wafdiga madaxweynaha Soomaaliya ayuu sii raaciyay wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in madaxweynaha uu bari tagi doono caasimadda Galmudug halkaas oo uu kaga dhawaaqi doono wajiga labaad ee dagaalka Al-Shabaab madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu soo waramayaa inuu saldhig ka samaysan doono halkaasi si uu ugula socdo gulufka ka dhanka Al-Shabaab si loogu xoreeyo gobolada dhexe sidoo kale madaxweynaha ayaa dhiirigelin u noqon doono taliska qaybta 21aad ee ciidanka xoogga dalka iyo qaybaha kale ee ciidamada iyadoona uu hadaf ku yahay in muddo kooban lagaga takhaluso shabaabka gobolada dhexe si kastaba madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kowdii bishii January ku hanjabay inuu muddo sanad ah ay dowladdiisa dalka kaga ciribtiri doonto Al-Shabaab